daawadayaal qaybteennii hore ee dilkii ilaa maanta aanan la xallinin ee dhimashadii ugu xumeyd ee qolka 1046 waxa uu inoo joogay ayadoo hal saac kadib maareeyihii isgaarsiinta hoteelka uu dareemay in qolka 1046 teleefoonkiisu ay weli fiiladiisu kala dhacsan tahay una diray wiilkii Randolph ahaa kadibna wiilkii uu albaabka qaraacay laakiin laga furi waayay markii uu furihiisa isticmaalay ee uu qolka gudaha u galayna uu arkay Owen oo dhulka jiifa gacmihiisana madaxa ay dul saaran yihiin darbiyada iyo dhulkana dhibco dhiig ah ay ka muuqdaan wiilkii intuu naxay booliska uu wacay haddaba sheekadeenna qaybtii labaad waxa ay ku bilaabanaysaa sidan markii booliskii yimid waxa ay arkeen Owen oo xaaladiisu aad u liidato dhaawacyo xunxunna ay ka gaareen xabadka kadib markii si ku celcelis ah oo xoog badan mindi xabadka looga shuqeeyay madaxana dhaawac ku dhufasho xoog leh ay keentay kaga yaalo sidoo kaleete waxaa dhaawacyo jug leh kaga yaaleen qoorta gacmaha calaacasha korkooda qoobka waxaayna u ekayd in la jirdilay oo weliba la ceejiyey laakiin wixii la yaabka lahaa ayaa waxa ay ahayd intii Owen aanan isbitaalka la geynin mar ay booliska wareysteen qofka dhibaatadan u geystay ayaa waxa uu sheegay in isaga uu kufay deedna uu ku dhacay barkad Owen waa la qaaday waxaana la geeyay isbitaalka markii dambana uu ku nafbaxay booliskii markii ay baareen qolkii aad ayay ula yaabeen waayo wax dhar ah meesha ma oolin sidoo kaleeto waxyaabaha musqulaha laga helo shukumaano agabka sida caadiga ah hoteelada laga helo midna ma aynan oolin qolka gudihiisa gogosha sariirta iyo darbiyada waxaa ku halaysnaa dhiig faraha kaliya ee qolka laga helay waxa ay ahaayeen kuwa ku yaalay nalka jiifka ee qolkaasi kuwaasi oo loo badiyay inay leedahay qof dumar ah waxaa kale oo qolka yaalay markii ay booliska yimaadeen 2 galaas oo biyo ah midkood xoogaa laga cabay kan kalena uu sidiisii u buuxo sidoo kale dhala aashata ah oo xiran oo aanan weli la furin wax kale oo yaalay qolka ma aynan jirin shaqaalihii waxa ay booliska u sheegeen in daahiyada qolka aanan xitaa hal mar la furin tan iyo markii Owen uu halkaasi soo degay wax raad reeb ah oo la dabagalo ma aynan jirin booliskii dib ayaa ka haystay in ay gartaan waxa meesha ka dhacay balse arrintu waa ayba ka sii yaab badnaan doontaa sida hadda ay tahay waxaa la ogaaday in Ronald T. Owen uusan ahayn magaciisa runta ah ee uu hoteelo kaleeto oo magaalada ku yaala uu magacyo kala gidisan ku joogay dhammaantoodna ah been abuur sida ay boolisku sheegeen intaasna hal mar oo qudha ayaa la arkay isaga oo la socdo nin kale warar kalena waa la helay sida nin magaalada ka shaqeeya oo la yiraahdo Len uu yiri Owen ayaa u yimid ninkaasi isagoo u maleynaya in uu tagsiilo yahay Lenna booliska waxa uu sheegay in qabowgii dhacayay ninkan Owen ah uu qabay kaliya kastuumo iyo fanaanad markii uu Len u sheegay Owen in uusan ahayn tagsiile waxa uu weydiiyay halka taxi uu ka heli karo Owen gacantiisa dhaawac ayaa ku yaalay dhiig ayaana ka daadanayay markii Len uu weydiiyay waxa gacanta kaga dhacayna inta uu candhuuf ku tufay ayuu ku yiri waan ka aarsan doonaa kadibna iska dhaqaaqay dad kaleete oo ah kuwa baararka qamriga ka shaqeeya waxa ay sheegeen in Owen uu iman jiray baararka kala gidisan ee aaggaasi isagoo ay la socdaan naaga kala duwan sidoo kale hagaha wiishka the president waxa uu sheegay inuu arkay naag uu u qaatay inay ahayd sharmuuto oo raadinaysay qolka 1046 lama kala garanaya in naagta lambarka qolka ay raadinayso ay gaftay iyo in ay ku lug lahayd Owen intaasi kadib booliska sawiradiisa ayay meel kasta u direen balse cid aqoonsatay ninkan qofka uu yahay waa la waayay markii meydka dad badan la tusay waxaa ka mid ah dadkaasi maareeyo loojin oo sheegay in ninkaas magaciisa runta ah la yiraahdo Wana balse intaasi oo dhan waxba sooma aynan kordhinin sumadii Owenna waa la garan waayay markii duugta loo diyaarinayay ayaa nin soo wacay booliska oo uu leeyahay ninkaasi meydka ah waa seedigiis una sheegay booliska inay qaldan yihiin ninkaasna aysan ku duugin qabuuraha boota sidii hore loo qorsheeyay qofkan soo wacay booliska ee daahson xitaa waxa uu bixiyay qarashaadkii duugta oo dhan isaga oo lacag cadaan ah oo wargeys ku duuban u soo diray shirkad dadka duugta balse wax kale oo warbixin dheeraad ah oo lagu tixraaci karo ma aynan jirin mar labaad ayaa booliska waxa ka hor yimid darbi aanan laga gudbi karin
oo ku gadaaman dhimashadii Owen. Duugtii Owen, qaraabo, saaxiibo, cid timid ma aynan jirin. Inkastoo qof aanan la aqoonin soo diray lacag, ubax iyo xaashi yar oo ay ku qornayd weligay waan ku jeclaan doonaa Louis, balse weli booliiska ma aynan ogaanin qofkaasi Owen lacagta iyo xaashida u soo diray cidda uu yahay. Waxa ayna isku dayeen in ay helaan qofkani daahsoon ee u soo diray Owen xaashada markii uu dhintay kadib, balse wax cad oo ay ku dabagalaan ma hayaan. Sidoo kaleete markhaatiyaashii ku noolaa hoteelka The President waxa ay sheegeen qaabkii la yaabka lahaa ee uu ninkani u dhaqmayay maalmihii hoteelkaasi uu joogay iyo wixii habeenkii ka dhacay qolkaasi. Ugu dambeyntii Owen waxaa lagu duugay qabuuro kaleete, qarashkii oo dhanna waxaa bixi qofkii daahsoonaa. Dhimashadiisii iyo xaaladii la xiriirtay waa ay adkaatay in la xalliyo, hawshiina dhinac ayaa la isaga dhigay tan iyo intii laga soo gaarayay sanadkii 1936 markaa oo naag ay soo wacday booliiska magaceeduna ku sheegtay Elena Ogletree. waxa ayna sheegtay inay ku noolay Birmingham oo ka tirsan gobolka Alabama ee dalkaasi Mareykanka. Naagtani intaas kaliya xogteeda laga hayo. Waxaa sidoo kale ay booliiska u sheegtay in ay wargeys ka akhrisay arrinta ku saabsan ninkan Owen, durbadiiba ay aqoonsatay sawirka walaalkeed oo la yiraahdo Atamas, kaasoo ay ku sheegtay markiisii hore in la waayay gugii 1900. gabadhan waxa ay booliiska u sheegtay in waraaqo fara badan uu walaalkeed u soo diray hooyadeed kadib markii uu xaafadda ka soo tagay. Muddo fara badanna uu u soo qorayay waraaqo reeraha, walow isaga uusan aqoonin sida taybka loo qaraaco. Haddana dhowr warqadood oo uu soo diray waxaa ku jiray erayo isdabamar ah oo xitaa shaki geliyay reerka. Waxa ayna sheegtay warqaddii ugu dambeysay inuu walaalkeed ku sheegay inuu aadayo Yurub oo nolol cusub uu ka raadsanaya. Booliiska intaas oo xog ah ayay ka heleen tan iyo markii uu dhintay Owen. Arrintu waxa ay sidaasi ahaataba oo kaliya booliiska ay haystaan warbixintaasi gabadhu ay u soo dirtay. Maalin baa waxaa soo wacay nin kaleete oo isaga taleefan u soo diray booliiska, sheegayna magaciisa in la yiraahdo Jordan, oo yiri ninka gabadhu ay sheegtay ee la yiraahdo Atamas uu yahay nin isaga hadda ka hore noloshiisa badbaadiyay. Jordan hadda uu ku nool yahay waddanka Masar, halkaasi oo uu xaas ku guursaday. Laakiin mar labaad ayaa waxaa su'aal ah oo soo baxay ninka la yiraahdo Atamas ee gabadha iyo ninku ay isku raaceen iyo qofkii kale ee meydka ahaa ee laga helay hoteelka The President ma isku mid baa. Booliiskii haddana waxaa u soo gacan galay hal xiraale aanan la furi karin oo weliba ka dhigay dhimashadii Owen mid ku gadaaman dhowr dhacdo. Su'aalaha badan ee ay isweydiinayeen booliiska waxaa ka mid ahaa ninkan la yiraahdo Jordan miisaga ayaa dilay Owen, kadibna lacagaha iyo sidoo kaleete warqadaha u soo diray booliiska. Haddii uu Owen yahay qofka dhintay ee ku dhintay hoteelka The President, aawe Atamas maxaana ku dhacay? Maxaa xiriir ah oo ka dhexeeya Owen iyo Atamas? Mar labaad ayaa booliiskii waxa ay go'aansadeen arrinkani inay lugta u yar dhigaan si wax fiican looga ogaado. In ka badan 70 sano markii ay ka soo wareegtay kadib ayaa booliiskii reer Mareykan waxaa 2013 mar kaleeta soo wacay nin magaciisa ku sheegay John Horner oo ahaa librarian ka shaqaynayay library ku yaalay magaalada Kansas. Waxa uuna u sheegay in qof uu u soo dhiibay alaab, isaga oo sheegay alaabtaasi inay ku jireen wargeys ka hadlayay Owen ama Atamas labadaba, sidoo kalena ay la socdeen waxyaabo kaleete oo ku saabsan Atamas. Laakiin mar saddexaad qofkan ciwaankiisa lama hayo, halka uu ka yimaadina way garan waayeen booliiska. Markii la weydiiyey ninkii librarianka ahaana waxa uu sheegay wicitaanka iyo sidoo kaleete alaabta uu helay kaliya inuu ninkaasi ka hayo oo wax kale oo raad ahoo loo dabagala aysan jirin. Tan iyo markii la dilay Owen waa dhacdada kaliya ee soo martay booliiska Mareykanka oo ilaa maanta loola yahay xal iyo sidoo kaleete wax lagu tiriyo ciddii ka dambeysay dilkii Owen ama Atamas. Booliiskana weli waxa ay la yaaban yihiin wixii ka dhacay qolka 1946, mana cadda sida ay wax u dhaceen iyo cidda ka dambeysay. Waxaana dilkaasi la geliyay diiwaanka koowaad ee waxyaabaha aanan la xallinin ee dalka Mareykanka ka dhacay. Daawadayaal, qaybtii labaad ee dilkii la yaabka lahaa uguna dambeysay sheekadii Owen
ayaan intaasi kusoo koobaynaa. taniya intaynu ku kulmayno barnaamijkan kiisa kale waa anigoo inkaga tegaya. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.